بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ولا ليال إلهي بمهد أصغناتي رب سبحانه وتعالى إلهنا وحان ويديساننا خاتمة إنه إلهي نوانا جيو وحكم إذا نبينا عليه الصلاة والسلام حويان كقاركي إنه الدفاع جري بعد الأثر وحصار وراء أثر نبينا عليه الصلاة والسلام مالين بوحود دمعي كباهم بودكي اللي حرته كبا أودو أخف لي nabiga inuu gashado shimbir marka baalkan oo dafayda la dhaho carruurta baadiyaha markii la joogo hilibka iyo waxan ka dafto baasamada intay ka soo booday bay kabti intuu nabiga gacan lugta gelinin calayhi salaatu wasalaam bay intay qaaday kor u tuurtay mas baa ka soo dhacay marka kaasa nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam qofka Allah iyo rasuulkiisa rumeeyay kaba buudayo xiranin asagoon iska fiirinin ka waxa la kaba buudka markaad gashanayso inaad iska fiiriso in wax ku dhex jira iyo inuu ku jirin nabigeennana sidaana amray calayhi salaatu wasalaam walaalayaal waxyaalaan rabna inaan ka sheekayno rabna inaan ku soo khatimno qisa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa shariifka ku xabaalan yahay magaalada madiina ilaa 4 jeer baa la isku dayay nabiga qabrigiisa in lagala baxo waxaana ugu badnaay niman gaala ah oo waqtigii dawla Ubaydiya ha u badnaato oo Masar ka duuleen 4 jeer baa la damcay nabiga qabrigiisa in la baxo oo niman gaala isku dayeen inay nabiga qabrigiisa la baxaan laakiin qisada maanta aan rabno inaan ku soo qabtino waxa weeyo qiso dhacday sanadku markuu ahaa 557 waqtigaana muslimiinta waxa amiir u ahaa Sultan al-Malik al-Adil Nuruddin Singi in aad u qiimo badan buu ahaa makuu fadhiyay makuu joogay niman dhinacan maghrib jiraan oo gaala ah yaa ninkii ayaga u weynaaba amar wuxuu ku bixiyey in qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam meydkiisa la soo bixiyo laba nin buu dhaqaalo badan siiyey wuxuu yidhi dhaqaalahan qaata meydka nabi maxamed inagoo wadaan ii keena wuxuu leeyahay nuruddin azinki wuxuu leeyahay habeen anoo hurdayo maka asagoo jiifa boqorkii muslimiinta markaas anoo hurdayo iyo nabi maxamed hurday igu imaaday calayhi salaatu wasalaam asagoo ii tilmaamayo itusaya laba nin oo ashqarayni labadaa nin ee tilmaantaala ma arkaysaa suuradooda la hor dhigay buuri wuxuu leeyahay labada nin ma arkaysaa haa ajidni anqidni min haadayni labada nin niyow iga badbaadi labada nin xumaan bay ila damacsan yihiin labada nin iga badbaadi fastayqada waa toosay fasican asagoo argagaxsan nuruddin singi asagoo argagaxsan buu toosay thumma tawada'a wa salla wuu tukaday wa naama hurdadii buu ku laabtay wuxuu waxan waa riyo intuu weysaystay oo 2 ragcadood tukaday buu hurdadii ku laabtay فرام المنام بعينيه مر لبعد بأهرنتي وكلا تصي فاستيقظ واتوصي وصلى واتكذا والنام واسع فرآه أيضا مرة ثالثة مر صدحات بالنبي وحور ورلبض أن يسمى أركيس هاي بدالي ومر صدحات فاستيقظ وقال وحيري وأيقوا يقين صدي لم يبقى النوم هرد مد منوري إك هرد دنبون كل نقر نبي محمد وصدح جار هرد يقول إماضي إلى اللبض أن إيجاب بدالي hurda ma soo harin ha labada nin iga badbaadi hurda ma dhimanowr eeg iyo waxaan ku sii jiifay ima muuqdo waxa dhici doona fiiri marka wuxuu lahaa nuruddin nin wasiir oo saalix oo suuban oo yuqaalu lahu Jamaaluddin al-Musili faarsala ilayhi wasiirkii wanaagsanaa buu wuxuu yiri bal igu yeera وحكي له ما وقع له wixii dhacay buu ooga waramay war xal waxana arkay saddexda jeer baa saay qabsatay faqaal wuxuu wama quuduka marka hadiiba waxa lagu tasay maxaa fadhi kaaga dan ah hadba nabi maxamed kulay badbaadi maxaa fadhi kaaga dan ah akhruj الآن bax ila المدينة النبوية وقت ما رأيت waxaad aragtayna qari riyadii xal lagu tasay cid kale uu sheegin ila nabiga wuxuu calayhi salaam ninkii madaxo ilaahay wasiir saalix ama bidaana saalixa ilaahay ku risaaq walibaanay ninkii muxuu faa'iiday ruux kale uu sheegin sirtaan ka bixin فتجهز وديار جرو من مكة إلى المدينة في بقية الليلة هبينك أنت كدي منايد بود ديار جروبي
وخرج وابحي نور الدين إلى المدينة وفي صحبته الوزير جمال الدين وحو هر أسي قاتي ويري سوكع مدينة أن أنا وزير كيسي فقال الوزير وحويري وزيرك أمر سيه وحكو يري وقد اجتمع أهل المدينة في المسجد مقالة المدينة تدكي رب مساكي جوغان مركاسا وحكو يري إيه كلمي dadka magaalada madiina joogo dhan igu yar waxa ku tiraahdaa boqorka maanta wuxuu soo siyaartay magaalada madiina qabrigii nabi maxamed buu soo siyaartay xoolo badanna wuu wadaa ii soo qora nin walba oo magaalada madiina ku nool dadkii madiina ku nool dhan bay qoran kullum dhammaantooda haddana wuxuu amray dadkii ii wada keena wax alla wixii qaangaar ah oo rag ah ha ii imaadaan nin walba oo ii imaadana wuxuu heli buu yidhi dhaqaala inuu bal ka dhex raadiyo labada nin wejigoodii iyo suuradoodii inuu ka soo saaro falaa yajidu tilka sifa dadkii oo dhan way soo wada mareen sifadii waa ka waaye mid walba wuxuu siin xoolo waa iska gadoomaa ilaa dadkii ay ka daba dhammaadeen boqorkaa marka wuxuu yidhi nuuruddiin zinki hal baqiya axadun qof ma haray lam ya'khud shay-an min asadaqa sadaqada aan waxba ka qaadanin qaala waxay dhaheen la ahlu madiina oo idil sadaqadii way qaateen فقال وحور تفكروا فكرة وتأملوا في الفيرية إن مجرى وحين قهر فقال وحيدا لم يبقى أحد إلا رجلين مغربين لبن أو مغرب كإمادين أنباء دمان لا يتناولان من أحد شيء قفنا وحبا كما قاتان وأن من زهاد أو عبادة بدن ابن وحبا كما قاتان وهما صالحان واللبن أو صالحين أو وناكسر غنيان أو غني أو هنتي بدن إلا نيك بقر كودي قال كهابا حول كسو درجي يكثران الصدقة أيها بصدق الله بحامبا على المحتاجين تدك أباهن فانشرح صدره نور الدين سينكي قلبي ساوى سعي وقرت مكا ماشا لبضان إن يهين وقال وحكور علي بهما لبضب أنا إيكانا صالحين إيو غنيان إيو والمصدقيستاني اسكر نافي إيكانا بول لبضن إيكانا بول فأتي بهما لبدن بالله كاني فرآهما وحو أرك الرجلين اللذين أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليهما بقوله وبصفة النبي وكت المامي لبدن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لبدن أيها أبا لبدن النبي لها أنجدني أقدني وهذا لبدن فقال اللهم نور الدين زنك وحكور لبدن من أين أنتما انتهت كيماتين ودن أهان انتهت كيماتين فقال واحدا من بلاد المغرب بان كيمان حق المغرب بان كيمان جئنا وان إيمان حاجين أنه حاجين فاخترنا وحان دورنا مركان حجك بوغني المجاورة في هذا المقام عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي محمد جيران لن نقول قبر جيس إسكا أقدقنا ما دام حجك آن بوغني فقال وحكول نور الدين مركا سيدا دهان نور الدين با وحكا عصا وحكو يري رون إيشاغا أصدقاني رون إيشاغا فصمم على ذلك أرنت كو أدكيس أمان سوى حجيني haddana waxaan jeclaysanay nebi maxamed inaan daris la noqonno inaan daris la noqonno yaan jeclaysanay saasay ku celceliyeen markaasaa nuuruddiin wuu gartay nuuruddiin labada nin iyo waxa ay ku jiraan ayna manzilukuma intee degan tihiin buuri boos ahaan intee degan tihiin fa akhbar waxaa loo waraa biannahumaa fi ribaadi qurbi xijri qabriga nebi maxamed docdiisayba meel ay degeenoo alaabta dhigteenba وأثنى عليهما أهل المدينة بكثرة الصيام والصدقة أهل المدينة لبدن waxay ku amaaneen sadaqa iyo soon iyo cibaadaba ابن نور الدين marka muxuu sameeyay وأثنى عليهما waxay ku amaaneen oo kale وزيارة البقيع والقباء قبورها بقيعنا ومارتا ee muslimiinta badan ay ku xabaaleen saxaabada ay ku xabaaleen way soo booqdaan masjidkan quba oo nabigeena u amaanayna way soo tukadaan way ku soo tukadaan faamsakuhuma wa hadara ila manzilihima nabigu nuur الدين waa aamusay meeshii ay deganaayeen buu imaaday وبقي سلطان يطوف إنه ضوافه في البيت بنفسه ساس أوري قبر النبي عليه الصلاة والسلام فرفع وحكر قاضي حصيرا في البيت جنبي أما وحات رهضبة قول ميلتال بصاو قاضي نور الدين ويهبين كوسي حنجرين فرأى وحوار كسردابا قد وين أو محفورا لقضي ينتهي كل مانا إلى صوب الحجرة الشريفة قد وين أول قضي أو أفكنا أي كسارين قوشن هاستنا إلى قبر النبي محمد بكل أرك نور الدين
markuu waaga baryo go-anay maradan ay kor ka saarayaan ama gogosha ka saarayaan habeenkii marka laga kala galbado labada kaliya ku saarayaan meesha way qodayaan wax alla wixii carro ay ka soo qufaanna meel jawaanay ku gurayaan subaxii waxay dhahayaan baqiic baan soo salaamayna waa niman zuhaad ah halkii bay carrada ku tuurayaan habeenkii marka laga haddana qoditaan bay bilaabayaan niman inkaar ku dhacday ahayn farta'at innaasu lidaa dadkii baa aad u argixeen wixii markay arkeen waa argagixeen dadkii aad bay u yaabeen wa qaala suldaan wuxuu yidhi cinda daalika asdiqaanii run ii sheega haa xaalukuma xaalkiina run iiga sheega aw darabuhumaa ama waan inagu dhufan darban shadiidan ama nabar xun baa inagu dhici buuri markaasay factarefaa way qirteen biannahumaa nasraaniyaani inayba gaalo yihiinba nimanka la waa niman sadaqa badan waa niman soom badan waa kana qubay booqdaan baqiic bay tagaan sadaqay la baxaan wax lamida maana arkin waaba nasraaniyiin haye bacahahuma annasaari fii xajaaji almaqaaribi baa soo diray ninkaa magacaalaa soo diray wacduhumaa wuxuu siiyey amwaalan cadiima maal aad u badan wa amaruhumaa wuxuu amray bitaxawul saraqati jasadi الnabi sal slam inay soo xadaan oy soo qaadaan jasadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cajiib inay soo qaadaan oy soo raraan wa kaanaa waxaa yaxfiraani leyl habeenkii bay qodayaan walikulli minhumaa maxfada mid walba wuxuu wataa meel wax lagu rito jawaan ama waxbu wataa uu carradii ku guri subaxin waxay dhahaan baqiic baan soo booqanayna qubuurta halkaasay carrada ku tuurayaan oo jildin maqaar ka samaysan calaa zayi lmaqaariba yacni dhaqanka lagu yaqaano maqaaribiyiinta waladii yajtamicu min aturaabi yajcaluhu kulu minhuma fii maxfadatihi wayukhrijaani liidhaari ziyaarati albaqiic fayaltaqiyaani bayna alqubuuri waagi markuu u baryana wixii intay qaadaan bay meeshii ku tuurayaan wa aqaamaa calaa daalika muddayba sidaa ku jireen ay soo wadeen falamaa qarabaa markuu dhawaaday min alxijri shariifa markay qabrigii nebi maxamed u dhowaadeen irtacadat isamaa wa abraqadat cirkii baa gugac iyo balaayo isa sii daayay gantaala hillaacna waa isla fakaday dadkii waxay u maleeyeen buurihii inay soo daateenba buurihii inay soo daateen bay u maleeyeen markaas waa habeenku soo galay magaalada nuuruddiin azinki markay qirteen oo wadahara uu caddaaday xaaluhumaa xaalkoodii calaa yaday ayaga ay afkooda ku qirteen wa ra'aa uu arkay ta'hiilullaahi laka daalika ilaahay suu u diyaariyey nuuruddiin duuna gayrihi baka bukaa'an shadiida inuu nebi maxamed ilaahay ku badbaadiyey markuu arkay aad buu u ooyey wa amara wuxuu amray bidarbi riqaabuhumaa labadan gaal luquntaha laga jaro luquntaha laga jaro uma amara wuxuu amray biixraadi qabriga nebi maxamedna in la aaso dib dambana aan loogu dhowaanin halkaa lagu ilaaliyo marka walaalayaal nabigeena calayhi salaatu wasalaam xayan wa meytan ilaahay baa ilaaliyey mucjisooyinkii nebi maxamed bay ka mid tahay inuu qabrigiisa ilaahay uu ku ilaaliyo marka ha isku dayin nebi maxamed asagoo nool inaad dhibto ha isku dayin nebi maxamed asagoo dhintay inaad dhibto dad baa isagoo nool intay damca inay dhibaan wax ka qaadi waayeen marka sidaasuu ilaahay ugu badbaadiyey nuuruddiin sankii nabigeena cala salam markuu noolaa gaalada waxaan isku dayin mala waad garanaysaan wiilkii abulahab uu dhalay yaa isagoo raba inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhib u geysto yaa wuxuu sameeyey gabadhiisuu ku furay aflagaado iyo cay iyo balaayu nebi maxamed ku bilaabay maalintaba nabiga wuxuu yihi ilaahayow ayadaada ku mida ku sallid isagoo shaam joogo oo habeen ayagoo marti ah oo musaafur ahoo xagga aadeen ay maqleen libaax soo sawdaynayo markaasaa wuxuu yihi caawa ducadii maxamed baa aqbal ah baalka anuu i cuni doonaa ilkuhu ku kala qaatay tab looga ridaa la waayo markaa isku day nabigeena calayhi salaatu wasalaam xayan waa meytan inaad dhibto marka walaalayaal mucjisooyinka nabigeena aan soo wadnay intaasaan kusoo khatimaynaa tobankaas jalse ama tobankaa xilqaan ugu talagalay allah nagu anfaco kuwii qaataanna allah naga dhigo hada wabilahi towfiiq wasali allahuma wasalama calaa nabiyina maxamed